dad masaakiin oo ku nool magaalada Buhoodle ayaa la gaarsiiyay deeq loogu talagalay inay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Axmed Maxamed Nadiif ayaa warbixintan inoo soo diray. maalmo kooban ay ka harsan tahay munaasabadda ciidda isla markaana muslimiinta adduunka u diyaar garoobayaan maalinta ciidda ayaa wariyay Najiib Cabdiwali Cabdixiis oo ka mid ah howlwadeennada telefishinka caalamiga ah Universal. waxa uu deeq marya qaybina gaarsiiyeen ka badan 70 carruur oo isugu jira danyar iyo agoomo. iyadoo deeqdan ay saxafiga u soo wakiisheen dad muxsiniin ah ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay wariye Najiib Cabdiwali Cabdixiis. maanta waxaan ku suganahay xaruntii agoonta oo aan agoonta iyo dad masaakiin oo magaalada Buhoodle ku noolaayay qaybina mariyay ciidka tirada dadkan waxay ka kooban yihiin 71 qof oo masaakiin iyo agoon isugu jira. deeqdan waxaa igu soo hagaajiyay oo soo diray ururka Alpha Trust oo fadhigiisu yahay dadka Ingiriiska wuxuu soo ciisiyay carruur gaarisa tobanka kale waxaa ciisiyay dad muslimiin oo meelo badan oo dunida ka mid ku baahsan. inta kale waxaa ciisiyay xarunta agoonta iyo weliba dad reer Buhoodle ku dhow muslimiin ah. dhammaan dadkii ka qayb qaatay arrinta gurmadka ah ee aan dadka jilicsan danyartii isugu jira agoonta aan ku ciisinayno ka qayb qaatay aad baan u mahadcelinayaa. waan aragtaa in maanta gaaro sidii ay ugu habboonayd ay u gaadhay. dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimmada gobolka Cayn iyo qaar ka mid ah waalidiinta carruurtaasi. u mahadcelinaynaa mahad badan aan u jeedinaynaa wariye Najiib Cabdiwali Cabdixiis iyo asxaabtiisa qiimaha badan ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hanuuniyay in ay caawiyaan dadka agoonta ah iyo masaakiinta ah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warraynaa sida uu uga dardaarmay agoonta aniga iyo qofka agoonka faala qaada ee wax u taraay sidaasaan isku nahay nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada. قتادة وحوريتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كن لليتيم كالأب الرحيم أقوم كأنه أبن حريص بدن وحلا عدة أقوم تعاوسة همي وكوها يساعي فضل بدن لا إله إلا رسول الله الشريف صلى الله وسلامه عليه ولكن ساعة حتى كم وغنى ساعة روحا يليات ولن يقدر يسوي قوية تضاعات القفوية إن شاء الله تعالى وحالو باقينا ومدى مسلمين تأمير كسوائي جوغان إنا يهنكو يكون غلط إذا حاولوا لك مساكين أغوانك إلهي سبحانه وتعالى والدكم أفصلي وحان مر لغادي مسجد هذا مهل علمية بل يرداس السرع القانطي وقرودينك وياهي نجيب يا أصحابي سلا شقيسي الله يباركيه الله يباركيه أولادي إن الله كوها قاتشي سلا كوها أنا أبها الهين أبوارنا حدا وغدا القتين إلهي بأنا مهلا غياك وبعد وحان مهلا غياك عوياشا مسلمين تاه أرنتان سوفلي وبعض الصحافة نجيب عبدولي iyo asxaabtiisa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo abaal badan ma xasiyo dhalinyarada soo abaabushay Alpha Trust soo abaabushay iyo dadka muslimiinta ah ee kala qayb qaatay hawshaas sida qiimaha badan ee hawshaas u qaameen dhalinyaradan ardayda ah ee yaryar ee agoonta ah ee reer Buhoodle oo maanta dharkii ciidda loo qaybiyay 17 qof oo maanta anga ciiday dharkoodii ciidda gacanta ku haysta oo agoon ah oo laga fadhiyay waa arrin aad iyo aad u qiimo badan. marka Alpha Trust waa dhalinyaro si fiican u shaqaysay. ugu dambeyntiina carruurtan ayaa aad ugu farxay deeqdan dharka ah ee la gaarsiiyay. Axmed Maxamed Nadiif, wararka Universal, Buhoodle.